بسم الله الرحمن الرحيم دمان وين السلامي قرابة أهل كبا وحن كسلامي سلامتا مسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله أو يو أنيجو كسلامتي إني ورجليو وحن ربي إن خصوصية مع الدويتو وحكو جيريو دي مجال نودو oo ku dhacay haro wiil Soomaaliyeed oo 14 sano jira wuxuuna ku dhacay haro ahayd sharci ahaan in la xadido gelitaankeeda hadii la galayna loo sameeyo dad ilaaliya oo ka ilaaliya dadka ama dadka ku ilaalinaya oo la yiraahdo lifeguard waxa kale oo ajaayib ahayd markii wiilku ku dhacay biyaha inaan muddo laga soo saarin oo ay qaadatay waqti badan in wiilku ku jiro inta badan ma dhacdo inta badan gobolkan deganahay qofku markuu biyo ku dhaco isla markiiba way hay sameeyaan way dad bay xil saaran hore laga soo saaraa haddii aysan dhicinin in meel biyuhu ay soconayaan aysanayno la heli waayo meesha ku dhacay laga heli waayo qofkii laakiin meeshan hara yar bay ahayd midda kale oo dhacdayna waxa weeyaan reerku wuxuu ka tagay magaalada Edmonton oo magaalada xoogaa bay noo jirtaa marka family-ga markay meesha tageen lama soo dhaweyn oo xataa wax xawmaada looma fidin oo ah arintaas oo ah arin gaar ahayd reerkan bay ahayd waxaan sababtaan arintan hadda u soo galay arintan aan fariintan u duubay waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed hal oo ku nool magaalada Edmonton oo Canada Alberta hal baan rabaa inaan u sheego dad baa aad uga caraysnaa arintan waxa fiican in qofku og yahay horta marka hore qiimaha noloshaadu ay ka taagan tahay wadankan marka loo fiirsho xuquuqdaada taasaan rabay dadka inaan u cadeeyo dadku waxaad moodaa xoogaa in maartay ay ku maxaa la yiraahdaa ay u fududahay inay wax isloosiiyaan ama ay iska dhigaan sidii wax ay la yaaban yihiin arintaan la yaab ma leh magaaladan iyo gobolkan aan deganahay oo Alberta la yiraahdo oo Canada wixii kala wax iska jirto hadaa tahay muslim ama madow aad tahay lama mid tihid sida dadka kala loola dhaqmo marka inaad yaabtid oo aad maxaa la yiraahdaa aad la yaabtid arintaas maaha waa arin jirta waa arin la ku hayo waa arin talaabooyinkeeda ama ka soo bilowda dhalinyaradii la laayo aan la raadin cidii laysay ama iyadoo maxaa la yiraahdaa ciyaalkeena ay dambiye loo sameeyo iyagoo dhan criminal laga dhigo ama ha noqoto inagoo maxaa la yiraahdaa madow ahaan maartay cusur ahaan la ku abuuro waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin sida picture ahaan loola dhaqmo marka anigu aad baan uga xumahay in dadku ay iska dhigaan arin la yaab la ama ay maxaa la yiraahdaa cawdaan iyagoo og arintaanu meesha ay salka ku hayso ama aan ka hortagin ama aan ka dhiidhay dad badan baa waxay u arkaan markii ilmo la dilo oo aan la soo helinin qofkii ama laga dhidhiyin inay reerka u gaataay ama ay maleeyaan in ilmahaasu ilmo dambiile ay ahaayeen arintu waa arintii dibiyada waa sheekadii dibiyada weeyaan haddii marka aan lays kaashan oo aan arintan laga hortagin dad badan oo hadda iska amno lama hadlayo nimanka ku maxaa la yiraahdaa ku maartay aan wax arin ah aan waxba ka qaban karin laakiin dad badan oo aqoon leh ama shaqaysta ama ilmo tiro badan dhalay ama meesha aad moodid inay guriga ka gatay ama dadkan la hadlaya waxaad ogaataan arintaa ku dhacday reerkaas White Court sida ku dhacday baa ku sugaysa ama gabdhihii
inta lagu dilay magaalada downtownka markii booliiska waceen lagu cayaaray oo lagu jeesjeesay. arrintan waa arrin sugaysa. haddaba haddii aad rabtaan adinku nolosha aad ogoshin inaad ku dhimateen oo nolosha aad moodeen inaad noosheen noloshaad ku dhimateen. ninka ku nool Alberta ama Edmonton ku nool ha ogaado noloshaad ku dhimateen. qayma noloshiinu leedahay, nololna ku leedahay, dhimashana ku leedahay ma jirto. cunugaas dhintay suusan qayma looga soo qaadin baad idinkoo dhan laydinkaga soo qaadin idinkoo weliba nool. haddii kale dad waxaa jira isu xil saaray inay arrintaa wax ka qabteen oo doonaya inay arrintaa ka dhiidhiyaan. waddankan waa nimid, ilmaana ku dhalay, kuwa weliba waxaa iigu daran 35 jirka oo ilmahoodu yaryar yihiin. arrintaasu waxa weeyaan nolosheenu qayma kuma lihin. soo markaa dhimatid iyo haddaa nooshahayba waa isku mid. berito lama oran karo noloma sheegin, haddaa in sheegayaa nolosheenu qayma kuma leh halkan, sababtoo ah idinkaan qayma isu yeelin. qofku markuu qayma ninkiisa dhinta qayma u yeelabaa noloshiisa ka noolna uu qayma yeeshaa. wada sharci ay tahay, wada ay tahay waddanka inaa shaqo ka heshaan, wada ilmihiinu ay waxbarasho fiican helaan, wada ay waddankan ku waxoo dhan waa nolosha waxa weeyaan qayma ma leh. taas baan rabay inaan xusiisiyo. midda kale aan rabay inaan xusiisiyo dadka ilmahoodu halkan ku korayaan oo fiican ay dhalinyarada yihiin. Toronto 4 ilmood baa maalin dhaweyd lagu dilay, weliba 2 Soomaali tahay. waxaana la isu laayay gaangis. arrintaasu markay Toronto wax ka dhacdo halkaana way soo gudubtaa. arrintaa laga digtoonaashana waxba tari mayso, sababtoo noloshiiba inaan qayma ku leyn. hadda haddii intay yimaadaan dhalinyaradan saxaabadeeyaan oo wax iska laayaan cid wax ka qabanaysa male. adigiin meel adigoo aadan isma aan shuqul ku lahayn baa waxaad noqonaysaa the wrong place at the wrong time. haddaba taasna la ogaada. midda kaloo dhacdana waxa weeyaan gaaladan waddankan caddaanka joogaahi ways dhegaystaan. gobolka la yiraahdo Mareykanka stateka la yiraahdo magaalada Albuquerque ee New Mexico 4 muslimiin oo masaajid ka soo baxday baa la ugaarsaday. waxaad ogaataan way iska dab qaataan dadkan. taasna waxaan rabay in laga digtoonaado oo ogaada magaaladan waxa weeyaan sida gobolkan ay uga dab qaataan Mareykanka bay u falgaliyaan. ama ha noqoto arrintii ka dhacday Montreal, ama ma arrintii New Zealand ka dhacday, ama arrinta Albuquerque ka dhacday. waa arrimo is-influence garaya. haddaba ha surprise garoobinina oo ha la yaabinina hadday arrimo noocaas oo halkan ka bilowdaan. arrintaa kalena waa iga digniin weeyaan. way fantamale ama afeefaro hawgali ama adkaysi daba laho. ninkii berito la yaabi lahaa markii si xun loola dhaqmo, ninkii walaalkii loo xiiriyo soo qoysa adiguna. taasaan in leeh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. inta aanu ka kulmayno qisa intaan iyo inta kale waan rabay inaan la sheer garay haddii lama. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.